عليكم وحان دونيا إن أن دمانبا مسلمين تمل كستو جوغان أدونكا إيا خاصة دادك الصومالي دا إن أن سلان ديران أو عيد مبارك أو ديرو وحان ليا هاي صومالية مل كستو جوغتان عيد مبارك عيد وناكسن إيدا عيد فرحد له بشبشية برواقعة عيد نبضة عيد وناكسن أو هرمر iyo kalgacayl iyo walaaltinimo leh inaad meel kastaba ku iidaan khaasatan dadka reer Kamukunji reer Islina waxaan leeyahay waa farxad bay noo tahay maanta markii ugu horeysay intaas oo sana inaan dib haddana u soo baxno oo si walaaltinimo oo wanaagsan oo muslimnimo aan si wada jira u tukanno farxad weyn bay noo tahay runtii waxaan ilaahay ka baryayaa soonkii iyo salaadii iyo sadaqadan baxsanay inuu naga aqbalo dambigeenana inuu cafiyo waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa in ciidan ciideeda kale inuu anagoo nabada nagu gaarsiiyo waxa kale toon ilaahay ka rajaynayaa muslimiinta tabaalaysan ee meelaha kala duwan ee adduunka jira oo dagaalka iyo dhibaatada iyo abaartu ay ka jirto ilaahay inuu dhibkaasi ka qaado oo nabad iyo caafimaad ay ku noolaadaan ugu dambeystina waxaan leeyahay reer Kamukunji waad ogtihiin doorashaan ku jirnaa waa sanad doorasho madaxweyne cusub baan dooranaynaa gabnar cusub baan dooranaynaa xaafadan Kamukunjina anigu xildhibaan ahaan baan u taaganahay marka waxaan idinka codsanayaa xildhibaanka la soo tijaabiyay ee aad taqaaniin hawlkarnimadiisa oo aad taqaaniin cadaaladnimadiisa oo aad taqaaniin horumarka uu xaafadda ka keenay midnimada dadkeena iyo wada jirka dadkeena sidoo uga shaqeeyay inaad mar kale kursigaasi aad daafacdaan oo ninkaasi hawsha qabtay aad ku soo celisaan oo codkiina ay siisaan baan idinka barayaa kuraasta kale ee MCA-yaashana Soomaalida 3 kursi bay ku leedahay deegaanka Kamukunji waxaan idinka codsanayaa 3 kursi inaanayna dhaafin oo aad daafacdaan marka aad awood siyaasadeed aad wadanka ku leedahay ayaad wax kale fursado kale ka leedahay ka samaysan kartaa ganacsigaaga wuxuu hagaagayaa marka aad hoggaan siyaasad leedahay horumarkaada bulshada wuxuu hormarayaa waqtigaas siyaasaddu ayaa maamusha wax kasta oo wadankan ka socda marka ka soo qaybgala si miir lehna uga soo qaybgala oo dad qiimo leh oo wax u qaban kara deegaanka gobolka iyo dalka soo doorta sanadkan